guusha ilaahay qodobada koowaad uu ku xiray ama ha noqoto qof ama qaran ama qoys meesha doonto ha noqoto guusha ilaahay wuxuu ku xiray al-iimaan qofku inuu wax rumaysan yahay halkan laabta ay wax uga jiraan wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin xilna saaran buu yiri alla waajib nasaarano alla isa saaray isagu مؤمنين إلهين أهل سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين إلهي مؤمنين تمعي وذو الله شاء سبحانه وتعالى وشرطي الإيمان إن البحر ما يسنتهي وقضية حنبار سنتهي قال ingiriisoo siyaasadda middle eastiga wax ka qorqoro caana ayaa waxa uu dhowaan qoray article uu leeyahay waxa dhammaaday zamankii ideologicalka zamankii afkaarta la xambaarsanaa waa dhammaaday marka wuxuu yiri waxaynu iminka ku jirnaa buu yiri zamankii dalaalinta waa la soo dalaalaya idea ma jirto fikradi ma jirto qadiyadi ma jirto mabda ma jiro diin maxay toolayeen ma jirto maxaa la sheegaya qof walba maxaan cunaa marka waa sariimadii xoolaha ee adhiga iyo lo'da iyo geelaba la keenayay tujaarta lacagta timaadna haysataana ay imanayeen nin walba tun xoolaha mid walba inta tunka la qabto la oran kan waa $100 kan waa 1000 kan waa 500 aadamihiisaasay maxay tahay noqdeen waa dalaalnimo ilaahay wuxuu leeyahay dalaalnimo wax laguma gaaro dalaalnimo wax laguma gaaree wax lagu gaaray wax lagu noqdaa buu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala inaad qadiyad rumaysan tahay qadiyad inaad rumaysan tahay oo hoggaankii dawladda maanta Israa'iil ee dhulka muslimiinta haysata xooga ku haysata dadkii aasaasay dad mabda leh ahaayeen dad mabda leh ayay ahaayeen qadiyad u dhimanaya oo maxay tolo David Ben Gurion madaxweynihii ugu horeeyay ee dawladda Israa'iil madaxweyne ka noqda wuxuu ku geeriyooday 10 shekel waa lacagtooda $10 isagoo aan account ugu jirin guri kira ah oo dawladdu leedahay ayuu ku dhex dhintay ama ku dhex baqtiyay qadiyad buu laakiin aaminsanaa qadiyad ayay aaminsanaayeen in yahuuda adduunka oo dhan la keeno oo dhulka Falastiin la keeno carab lagu faafo carab la burburiyo dawladda kaliya xoog leh ay noqoto yahuuda oo dhan halka la isku keeno qadiyad bay ahayd qadiyad bay aaminsanaayeen carabina 1948 ilaa maanta waxay leeyihiin Israa'iil baanu dagaal kula jirna maalin kaleena guul waa ka keeni kari laayeen idan waxan wax lagu noqday wax lagu kala dhaqaaqa waxa weeyaan al-iimaan qadiyadaada rumaysnow kan ninkan gaalka ah ama cilmaaniga ah ama left side ama right side mabda ay aaminsan yihiin hatta maanta waxa soo baxay qolooyin green party layla oo geedadka iyo environmentka aaminsan waa qadiyad تجارة كجرة أقوياء لا كجرة intellectual لا كجرة وحول قفك آمسيه والقفك مؤمن كايس نوح على جربا إنه قضية ليه وآمس قفك دائما واحدة آمسين ومصيب هذا قفك شهوة بيسون عياره يمحان هنا محان بوسدا محان عباء محان كقيلا محان كل مرقامة جاري محان حدا صعب كهلا يتوب مركا وضد الصوم مرة ولا سركعة ولا غباسة وحاسب قضية أي قضية النقطة والنوع من العبودية وإسلافري قضية مبدأ قضية له معها طلب طلبات إلهي نوش إليه جوش لوها لو حويا تقوى الله قف إنه مركب هم إلهي إنه عبسد إلهي وكل